بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 568 عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: إن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، قال اللهم عبد الرحمن بن عوف: لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف. الحديث والأثر صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 25 bishii afraad rabiicu thaani sanada 1446 isla markaana waafaqsan 28 bishii tobnaad sanadka 2024. waxaanu ku jiray kitaabkeena ugu magac daray almuntakhabu min saxiixi sunna nabawiya qaybihiisii kala duwanaa. khaasatan waxaanu wax ka soo qaadanay ciwaankii iyo qaybtaan ugu magac daray العدالة والتنازل لأجل مصلحة المجتمع هما أساس بناء المجتمع. waxaanu ku soo jiray cadaaladda iyo isu tanaasulka liajli maslaxada ummadda loo tanaasulo wixii la isku qabto waa asaaska mujtamaca dhismihiisa iyo wadajirkiisa iyo horumarkiisa ay asaas u tahay. alcadaalatu watanaasul waxaan soo qaadanay ilaa 2 xadiid baanu soo qaadanay. xadiidkii waxaa maaragtay aanu ku soo bilownay maaragtay ku saabsanaa cumar bin khadaab iyo labadiisii wiil wixii dhex maray cabdullaahi iyo cubaydullaahi, iyo waxaa kaloon soo qaadanay xasan bin cali iyo mucaawiya wixii dhex maray iyo tanaasulkuu sameeyey. maanta waxaan qaadanaynaa qayb kale oo ayadna lamid ah, oo mowqif kale oo ayadna cajiib ah, oo aad iyo aad u qiimo badan oo raacic ah. waana ku soo gabagabaynaynaa mawduuceennan saddexdaas meelood, saddexdaa xadiid baanu ku soo khulaasaynaynaa. halkan xadiid mehe waa taariikh weeyaan iyo athar. culimmadu cumar bin khadaab radi allahu tacaala canhu wa ardah, khilaafadiisii markuu geeriyooday iyo khilaafadii cuhmaan bin cafaan bay arrinta ay ku saabsan tahay. waxaan u soo qaadanay mowqif kaloo cajiib ah cabdiraxmaan bin cawf radi allahu tacaala canhu wa ardah ku saabsan, oo tanaasul iyo mowqif cajiiba uu sameeyey ayaanu maaragtay ku saabsan tahay. ninka layihahda miswar ibnu makhrama radi allahu tacaala canhu wa ardah baa qisada ka hadlaya. qaala wuxuu yihi: ina arahda jamaacadii aladiina kuwaasoo wallaahum maaragtay uu tawallisiiyey cumaru, uu yidhi intii naas iska soo saara ciddii madax noqon lahayd, ijtamacuu way kulmeen, fatashaawaruu way mushaawareedoonoo taladii bay wada wadaageen. halkaa markay maraysa qaala allahum cabdiraxmaan ibn cawf wuxuu u yidhi: lastu anu mi ihi biladii kii unaafisukum mid idinkula tartamaya anu mi ihi calaa haada alamri, amarkan oo kale iyo madaxtinimadkan anu idinkuma jiri, walaakinakum idinku in shi'tum haddaad doontaan ikhtartu waan dooran lakum idinka minkum xaggiinaan qof ka dooranaya haddaad arrintaas aad ii xil saartaan ood ii ogolaataan. fajacaluu daalika arrinkii waxay u yeeleen ilaa cabdiraxmaan bin cawf ayay arrinkii u sameeyeen. cabdiraxmaan bin cawfna markaa cuhmaan bin cafaan buu soo xulay. alxadiid atharkuna waa athar saxiixa wey. ikhwat alislaam waliimaan, qisadan waxaan u soo qaatay mowqifka cabdiraxmaan bin cawf uu sameeyey oo mowqif cajiib ah radi allahu tacaala canhu wa ardaa. saxaabiga jaliilka zuhriga reer bani zuhura wuxuu ahaa arrintan dib markaan idiin celiyo. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka tirmidi iyo keyrkiiba warinayaan, alcasharatu almubasharuuna biljanna, 10 qof ee hal mar jannada lagu bishaareeyey waxaa ka mid ahaa 4 khulafaa raashidiinka: abubakr sidiiq, cumar bin khadaab, cuhmaan bin cafaan, cali bin abi aalib, zubayr bin cawaam, talxa bin cubaydillaahi, sacd bin waqaas, cabdiraxmaan bin cawf, ninka la dhihi abu cubayd ibnu jaraax, iyo saciid ibnu zayd maaragtay oo cumar bin khadaab isku fami lahaayeen. 10kaa qof
ayaa hal mar ilaahay maartuu nabiga calayhi salaatu wasalaam yuu hal meel hal goob ugu bishaareeyey janno alcasharatu almubasharuuna biljanna ayaa layihahdaa idan cumar bin khadaab markuu dhintay waxaa markaa noolaa cumar bin khadaab waxaa ka horreeyey geeriyooday abubakar sidiiq baa geeriyooday waxaa kaloo ka horreeyey abu cubayd bnu jaraax baa asna geeriyooday oo ka horreeyey oo sanadkii 18aad ku shahiida daacuunka ku dhintay shaam cumar ku dar waa saddexdaasaa geeriyooday cumar markuu markaa la dhaawacay oo ninkii abulula almajuusi uu ku dhuftay toorida maalmo ayuu sii noolaa aad buuna markaa u jilicsanaa muxuu sameeyey markaa khilaafadii inuu qof magacaabo oo dhaho adigu adaa madaxweyne ah wuu ka baqay in ummaddii uu iska sii daayo oo hadhow khilaaf dhacana wuu ka cabsaday muxuu sameeyey 6 nin buu soo saaray markaa oo 10 mubashiriinta ku jirtay 6 nin buu soo saaray maxaa yeelay 10 bay ahaayeene abubakar waa dhintay abu cubayd bnu jaraaxna waa dhintay cumarra calaa shafa almowt yuu taagan yahay oo sariirtuu saaran yahay waa 3 weeye 3 markii 10 laga gooyo 7 soo hadhaysa 7dii mid buu ka reebay wuxuu soo saaray markaa cuthmaan bin cafaan iyo cali bin abi daalib iyo zubayr bin cawaam sacd bin waqaas cabdiraxmaan bin cawf iyo dalxa bin cubaydillaahi 6daasuu soo qabtay cumar bin khadaab u yeedhay asxaabu shuura la yidhahdo wuxuu yidhi 6diinan saciid binu zayd wuu ka reebay waa arrin cajiiba soomaaliya halkaa la dhegeysto saciid binu zayd cumar bin khadaab bay isku fami lahaayeen ilma adeer ahaayeen cumar bin khadaab walaashiina way u carruur dhashay wuu ka reebay 10 mubasharuuna biljannana wuu ku jiray muxuu oga reebay wuxuu ooga reebay inaanan la qabyaaladaynin oo raggan uu soo maray ixtiraam asaga ay ku ixtiraamhayaan inaana asaga loo dhiibin oo la dhihin war cumar bay qaraabo yihiin aan asaga ku wareejinno oo cumar aan ku raadigelinno saan loo dhihin ayuu ka reebay wuxuu yidhi kuma jira asaga 6da kaluu soo saaray waa cuthmaan bin cafaan cali bin abi daalib zubayr bin cawaam dalxa bin cubaydillaahi sacd bin waqaas cabdiraxmaan bin cawf 6daasuu yidhi haliigu yeedho waa loo yeedhay wuxuu yidhi niman yahow dhegaysta 6diinan baa 10 mubashiriinta ahaa nabigana idinkoo uu raadli idinka yahay buu geeriyoodee ummadda ninkii hogaamin lahaa 6diinanba waad u suubataane iska soo saari yidhi 3 beri baana idiin qabanhaya haddaan geeriyoodo 3 beri kadib inaad ku dhawaaqdaan qofkii ummaddan hogaamin lahaa 3 days baan idin siinhayaa buuri bimacnaa haddaan dhinto 3 beri kadib magacaaba qof magacaaba bimacnaa intuu nool yahay lama magacaabayo laakiin waa markuu geeriyoodo wey 3 beri markaan geeriyoodo 3 beri kadib qofkii marka ummaddan hogaamin lahaa 6diina iska soo saari yidhi waa halkaa horta maanta waxaan u soconno sidaa markuu 6dii uu yidhi macnaheedu 6duba waa garba siman wey haba kala fadli badnaadeen oo khilaafadaasay u socotay ha u fadli badnaadeen haddana 6duba 10 mubasharuuna biljanna ahaayeenoo giddigood way u suubadeenoo nin kasta inuu noqdo madaxweyne wuu u suubaday haddaba 6dii hadde waa garba simana see la yeeli miswar ibnu makhrama radia allahu tacaala canhu wa ardaah oo cumar bin maartay cabdiraxmaan bin cawf baa abti u ahaa walaashii baa dhashay min siqaari saxaabana wuu ahaa marka ninkaas baa warramhaya wuxuu leeyahay ina rahda jamaacadii aladiina kuwaasoo wallaahum cumar uu maartay uu u yeedho oo yidhi tawallisiyo yidhi ummadda mid ka soo saara maarta ummadda hogaamiya ijtamacuu way kulmeen buuri meel bay isugu tageen 6doodii fatashaawaruu arrintii bay gorfeeyeen oo maaragtay ay aad u falanqeeyeen arrintii hadda see la yeeli 6doodiiba mid ka mida keena waayaa soo saari dhegaysta meeshaan u socda waa halkan wey 6doodii oo garba simana qaala lahum cabdiraxmaan bin cawf wuxuu u yidhi lastu mi ihi buu yidhi anugu biladii kii unaafisukum idinkula tartamahaya calaa haada alamri amarkan oo kana anuu idinkuma jiri buuhi maxalu shaahidkaan u jeedaa halkana cabdiraxmaan bin cawf 6doodii wuu iska saaray wuxuu yidhi anigu kuma jiro madaxna uma noqon hayo dadkan saa darteed raadli ma ku tihiin 5tiina soo hadhayow aniga talada ma ii dhiibanaysaan oo ninkan aan la mubaayacoodo aan soo qabto ma igu raacaysaan haabay dheheen markaa
محل شاهد كينا وحاوي أنا ما أنت أتشئنه عبد الرحمن بن عوف لأجل مصلحة الأمة وتنازلي إلا أن اللي حدوده قربس من بأهايان ننكس وحوله ترى ماذا لقادي دونا عد كدقي سنة لما هياد عبد الرحمن بن عوف موقف كابوس كساري وحول أنو كما تشري صادرت شنتين ننكله وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد بن وقاص وطلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام شنتي ناس وحويلي ما يدي بنيسان ثلاثة ونن كان soo saaro shantiina ma igu raacaysaan waa ka ilaahay qaal lahum Abdurrahman wuxuu yiri lastu anu mihi billadhi ki unafisukum idin kula tartamaya ala hada midka al-amri amarka idin kula tartamahayo laakin ra'yi baan idin haya walakinakum idinku in shiitum hadda doontaan ikhtartu waan dooran lakum idinka waxaan dooran minkum xaqiina qof ka soo dooranaya idinkaan idin dooran xaqiina ka soo dooranaya qof فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف أركي وديبتين شنطو ديبا waxay dhaheen adaan amarkii ku dhiibanay nin allaaliye ninka u aragti inuu maartay saalix u yahay keen bay ku dhaheen marka riwaayaadka qaar kood waxay sheegayaan ayagii wuxuu ku yiri Talha bin Ubaydillah wuxuu yiri Talhaw bal nin ka soo dooro dadka markaas aanu Uthman bin Affan baan dooran lahaa Uthman bin Affan yaa dooran lahaa buu زبير بو يري زبير وادو يا دوران لهيد زبير مركاسا وحو يري انو علي بن ابي طالب بان دوران لها بو ان سعد بن وقاص ايو يري يا دوران لهيد ادونا مركاس انو عبد الرحمن بن عوف بان دوران لها ومركا عبد الرحمن بن عوف لا انو كما جيري ماشي مركا اخوتي في الله لبا قضب با u baahan inaan dul istaagno oo darsi ka qaadano meesha qodobka koobaad waxa weey عبد الرحمن بن عوف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى مركو ترجمه هيو مواقفته وكجاه الله هيو حوله مواقفته عجيبك والنادر وإن الله هلو هذا وعدك هاي وحيابها عبد الرحمن بن عوف موقف كانوا سميه ويام خلافة اللي حيجوا كمذا مركي لي من هذا الصوص صاروا أيوة أصو إسكساروا يكتنازلوا مركز صدنا وحويني متكين عن سوق بتم يقول راعي سنتين نكله آد إمام الذهبي هلك هو أماني وماشي ما أرتل الوسم بالرحوض عبد الرحمن بن عوف نيدي وكجوي إنه أسوي مدح النقطة موقف عجيبة أيها مسور من مخرمة وانك صاحب القصة صحابي الجليل أيها هجري مركوها سنة كلابات بود الشيء ما كنا كل شيء وقت هاس وما ينسوا هجرونين ماكو مارت دتك ما كان لوه يستيبوها سنة كلابات بو إسلامي هجري مركو سنة كلاباتها بو إسلامي سنة كسيداد ما كان لفرطينا وسو تغيو مدين ويمد سنة كسيداد انت انا ما كان لفرانين وسو هجرودي محو يمد مدينة ايو يمد وابيه بو صور راعي مخرمة ايو صور راعي مدينة ايو يمد مركا اللي حجربوها halkaasuu markaa ku barbaaray inta wixii ka dambeeyay Abu Bakar khilaafadii buu la qabsaday oo la joogay ciidamadiisii uu ku jiray Umar bin Khattab buu aad u laazimay markaa Umar bin Khattab buu aad u laazimay ahadiitana ka warin jiray lana shaqayn jiray oo ciidamada futuuxaadka sameeyay ee xoog badnaa buu kamid ahaa waa reer Bani Zuhra weeyaano Abdurrahman bin Auf isku fahmi lahaayeen iyo Sa'd bin Waqas isku fahmi lahaayeen Abdurrahman bin Auf bana abti u ahaayo walaashii baa dhashay walaashii baa dhashay qisadan wuxuu u warinayaa Abdurrahman bin Auf markuu yiri nimayo aanu idin kuma jireen ma amarka ma ii dhiibanaysaan qofkii aan u arkaan soo saari oo ayagana u dhiibteen ummadii buu u kacay Abdurrahman bin Auf magaaladii Madiina culimo iyo dhalinyaro iyo haween iyo madax iyo waxoo dhan buu la tashaday lixdii nin buu markaa weydiinayay aduu yaad ka dhigi lahayd dadkiiba afti ka qaaday nin buu dadka ugu yeedhay horta shantoodii mid kastaba gees buu ugu yeedhay oo waraystay nin kasta qofku u dhiibi lahaa kadibna ummadii buu u kacay Miswar bin Mukhrama ragii la shaqeynay Abdurrahman bin Auf kamid aha saadartay markii saddexdii bari dhamaatay subaxii afraad ayuu Abdurrahman bin Auf uu rabay inuu ku dhawaaqo markaasuu Misr bin habeenkii Muusaxan indhaha isuma keen Miswar bin Mukhrama ayuu habeen barkii u yeedhay albaabka ku soo garaacay warwaa maxay amka socoti buu miyaad seexataa waan seexday buu aniga wuxuu yiri la min qaliil wala min kathiir indhaha caawa isuma qabanin buu bal wuxuu yiri inta aan hawshan galay indha isuma keenin buu
لأن أمورتي المسلمين تأيان قعنت كوها يابو halkii buu markaa deedna uu ku yidhi iigu yeedh buudh hebel iigu yeedho hebel iigu yeedho hebel iigu yeedh raggii oo dhan buu u wada yeedheedhay nin kastaba marka uu si geesaanad oola faqay oo wax weydiiyey kadibna masaajidka nabiga la yimid mimbarkuu fuulay dadkiibuu isugu yeedhay mimbarkiibuu fuulay halkiibuu ku khudbeeyey kadibna cuhmaan binu cafaan ayuu gacanta fidiyey oo la mubaayacooday halkiiba giddi ummaddii muslimiinta oo dhan ay la mubaayacoodeen cuhmaan binu cafaan hal qof oo khilaafa ma jirin sidaasuu cuhmaan binu cafaan khaliifkii ku noqday bacdallaahi uma cabdiraxmaan bin cawf tanaasulkiisii iyo dadaalkuu dadaalay ayaa cuhmaan binu cafaan lagula mubaayacooday ilaahina subxaana wa tacaala waafajiyey xaqii cabdiraxmaan bin cawfo ninkii u lahaa ee fadli ahaan ku soo xigay cumar binu khadaab buu ahaa cuhmaan bin cafaan sidaasay ahayd marka ikhwati fillahi masalada waxaan halka u aaday cabdiraxmaan waxaan ciwaankeennu waxaa weeye alcadaalatu watanaasul cadaaladda iyo tanaasul isu tanaasulitaanka min ajli maslaxati lumma humaa asaasu binaa'i lmujtamac baan idhi mujtamaca dhismihiisa aasaaskiisa waxaa ah cadaalad in lagu maamulo iyo in laisu tanaasulo cabdiraxmaan bin cawf mowqifkaasuu muujiyey mowqifka kale asna cajiibka ee halkan aanu ka iftiiminayna waxaa weye cumar binu khadaab radia allahu canhu wa ardaah lixdaa nin markuu soo saaray kuna beesgareeyey u yidhi nabiga asagoo raadli idinka yahay buu yuu dhintay yidhi saciid binu zayd oo casharatu mubashariina ku jiray wuu ka saaray muu soo gelinin limaada isku famil bay asaga ahaayeen asagoo ka baqahaya ixtiraam asaga la ixtiraamhayo laga xishoonhayo inay ninkii ilma adeerka hayeen ibnu camihi in loo magacaabo cabsi uu ka baqahayo ayuu ka saaray bal riwaayaadka qaarkood waxay leeyahay reerka anaga reer banu cadi buuri int cumar baa ku filan buuri yacni dhibaato khilaafadu culayskay lahayd iyo dhibkeeda hadday faa'iido lahayd iyo hadday dhibaa khasaaro lahaydba cumar baa usoo qabtay cumar baa kaga filan reer banu cadi cid dambo ayaga inay qabato marra buuri idan saciid binu zayd wuu ka saaray halkaa waracnimadka bal u fiirsa meesha inagu afrikaanka ama maaragtay muslimiinta maanta joogta iyo carabba ilana gaalo kama hadlayne ninku markuu jagada qabto uu reerkiisa soo ururin hadduu barasaab yahay hadduu guddoomiye xaafadeed yahay war waxa iskale iska daaye haddii la dhaho maaragtay meeshan xaafadda shaaha u qaybi haddii la dhaho ka shaaha karinaya wuxuu ka dhigi reerkooduu ka dhigi aduu inaad shaaha meeshan ku karisi baa lagu xilsaara haddii layihahdo ka shaaha shushubaya reerkooduu ka dhigi cumar binu khadaabna in adeer nin ay yihiin oo ragga mutay oo casharatu mubashariina ku jiray buu ka saaray oo uu yidhi si aana loo dhihin aniga laigu xushmaynin oo loo dhihin cumar binu khadaab ay isku famil yihiin aan u dhiibno ayuu yidhi ma soo gelayso waxaa ka sii daran saciid binu zaydkii laga saaray muuse hunguriyeyn muuse dhihin cumarow dadkii maxaad iga saartay raggan isku leebel baan nahay dhammaantaana casharatu mubasharuun baan wada ahayn maaragtay wax mudnaan oo maaragtay ani la iga saarahaya ma jirto muuse dhihin asna raadli buu ku noqday bannaankaasuu ka maray banaanka banku dhalay buu ka maray wiilkiisa cumar binu khadaab baa joogay cabdullahi bin cumar baa joogay oo cumar binu khadaab uu dhalay waxaasoo dhan muu soo agmarinin 6 nin oo qabaa'ishii kale quraysha ayuu soo saaray oo wuxuu yidhi ilaahayna ka cabsada ninkii ummaddan xukumi lahaana markaan dhinta 3 beri kadib waa inaad magacowdaan cabdiraxmaan bin cawf baa 5toodii wuxuu ku yidhi anigu idinkuma jiri xukun ma rabo laakiin waxaan idin weydiinhayaa haddaad hawsha ii dhiibtaan waan idinka soo dooran qofka ummadda hogaamin lahaa idinkuna ma igu raacaysaan haabay dheheen sidii baa loogu dhiibay sidii buu markaa deedna cuhmaan binu cafaan uu ku soo saaray mowqif cajiiba weeyaan qofku markuu ilaahay tala saarto ummadda maslaxadeedana u tanaasulo ilaahay baa xaqa waafajinaya cabdiraxmaan bin cawf ilaahay baa waafajiyeyoo afdalu maaragtay bacda cumar afdalu saxaaba bacda abibakar wa cumar cuhmaan buu ahaa cuhmaan baa ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey dadaaluu dadaalay iyo maaragtay juhdi uu dadkii weydiiyey idan ikhwati fillahi darsi ayaanu halkaa ka qaadanaynaa ummadda in loo cadaalad sameeyo loo tanaasulo maslaxadooda dartood laguna dadaala maaragtay cadaaladooda iyo maslaxadooda xukunka dhib weeyaane ma aha haniimo maaha inay xukunka laga fogeeyo qofka xukunka haya reerihiisa inuu soo uruursado in laga ilaaliyo war adugu ama haddaad doonto shaah qaybi ama haddaad doonto hogaami noqo ama madaxweyne noqo ama wax kale iska daaya uwaas noqo marba haddii ummadda horjooga kaa dhigato
inaad horjooganimadkaadaas reerihaada uga faa'iidaysa oo tiraahdi annaga umaynan dhaafinba waa waxaan saxayn ku daya saxaabatu rasuulillah. cumar bin khadaab saciid bin zayd buu ka saaray isku famil baan nahay, isaga xaq kuma leh. cabdiraxmaan bin cawf asna waa tanaasulay, wuxuu yidhi anigu waan ka tanaasulay, ninkaan soo saari lahaa maarata ii dhiibta qoorta anaa ninkaan maarata idin soo xulahaya. marka waa arrin cajiiba weeyaan ikhwati fillah. marka darsi iyo xikmad badan baa ku jirta iyo mawaaqif cajiiba. ilahina subxaanahu watacaala waxaan weydiisanayna biasmaa alxusna wa sifaati alculaa inuu xaqana tusanuun irtaaqa xaqa raacitaankiisa. هل مر بان كعلنا أثرك. الحديث 568 عن مسور بن مخرمة رضي الله عنه قال إن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا قال اللهم عبد الرحمن بن عوف لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف فاختار عثمان بن عوف رضي الله تعالى عنهما وارضاه. الحديث والأثر صحيح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.